marka maxaad dareemi kartaa markii aad iska daysid waxa ugu horeeya dareemaysa waxa weeye xoog baa isla markiiba kuu soo noqonaya awood baad yeelanaysaa awood markaad yeelatay awooddaasi waxay ku kalifaysaa in baqdintii iyo khaakhayirkii iyo indhacasaantii iyo waxyaalahaasoo kale kaa guuraan qalbigaaga uu noqdo qalbi adag in jimsiyadaadu xoog yeelato inaad jiimkoo kale aad ku ficnaatid inaad sportiskoo kale ku ficnaatid inaad iskuulkoo kale ku ficnaatid oo laga yaaba inaad kalaasyadii oo dhan wada keento maskaxdaada soo noqoto in aad wax kasta oo aad qalbigaaga kusoo dhaco aad timacda inaad samaysay aad samayn kartid oo soo noqotid in dhabar xanuunkii kaa kaco in kacsigaagii soo noqdo in hamad aad yeelatid xoog badan oo raganimo oo xitaa waxaweye naag kasta oo aad damacdid aad soo jiidan kartid oo naagihii way ku arkayaan in shahwadii jirkaaga kusoo noqoto shahwa jirkaaga ku jirto testosteron aad leedahay way arki karaan xiliya xanuunkoo kaa ba'a indhacsaanta bishimajajabka timihii kuu soo noqdo hagaaga waxyaalo badan oo aan la soo koobi karin baa qalbigaaga kusoo noqonaya oo adigoo dhan naftaadu waa sida nabar markuu ku jaroo kale gacantaada marka nabar jaroo kale waxa weeye dee marka muddo joogto wuu kabanayaa nambarka wuu isqabsanayaa boogta way isqabsanaysaa waa saasoo kale maskaxdaadu way dhaymaysaa oo way kasoo noqonaysaa addictionkii waxay la mid ahayd qofka sigaysta ama saksiga ku waalana boonka daawada ee balaayada qashinka filimada anshaxmada daawada waxaa la yidhaahaa waxay la mid yihiin qofka alkulistaha ee kookada haysta kookada dhuuqa ee gidaarada seexda waad ka duwan tahay mooyaane oo gurigaad malaha seexataa mooyaane isku maskax baad tihi xagga maskaxda signalska maskaxdu qaybta ay kuwaas kookada cabaya qaybta maskaxdooda shaqaynaysa ba adigana tibtaasoo kale kuu shaqaynaysa markaad siigaysanaysid ama aad filimada xuxu daawanaysid isku qayb baa maskaxda qaybta frontal memoryga oo maskaxda isku siba u shaqaynaysaa waxaa ku jirta maado dopamine la yidhaha dopaminekaas waxa weeye waa faraxgelisada weeye nafta faraxgelisada nafta marka faraxgelisadaas wax ka fiican oo aad sigada oo aad siin kartid maskaxdaada ma jirto marka wixii ugu faraxa badnaa adduunka aad siisid gacantaada within a second aad ku siin kartid maalintii dhowr jeer dee gurigaaga cleangare iyo iskuul yar u dadaalo ee kasoo qaada iyo homework yaroo dhuu ahaa finish gare iyo gaariga iska nadiif iyo halkan waxe iyo waxyaalaha yaryare macanaha aan lahayn ee dadku ku mashquulsan yahay adiga kuu muuqan maayaan caadi waxaan macno lahayn bay kula tahay waxaad la mid tahay qof drugista ah oo cocaine iyo heroin iyo balaayo ku dhex jira qaad iska qayilaya qofkaas wuu qayilaayo hebel wuu qayilaayo daroogadii waxaa soo ritay qaadkii baa soo ritay oo qofkaas oo cidihii baa ku baxay ma maqashay oo bartaas iska fadhiyaa timihii baa ku baxay waa iska qayilaya qofkaas oo kalaa tahay isma ogide oo waa sigaysanaysaay isku mid baa tihin iskaanka la saara maskaxda isku siba tusaya marka maskaxdaadu way soo kabanaysaa dee addictionka waa kasoo kabanaysaa haddii aad iska daysid way kasoo kabanaysaa muddaysa qaadanaysaa oo waa inaad iska daysid oo control geshid every 2 weeks naftaadu nafaqada dib bay u nuugaysaa maskaxdaada marka 2 bilood 2 week markaad saa ugu wadid naftaadu way isnafaqaynaysaa way kusoo noqonaysaa marka waxyaalaha ugu badan ee first week oo kale waxay haddaan soo taabtaabto si aad isaga dayn kartid oo kale waa inaad horta maaragtay wax aad fahantid gabdhaha yaryar ee ku doonaya inay adiga nolosha kaa tuuraan ee qalbiga aad ogtahay inaad ka xanuunsanay sidee waxa weeye shahwada naarta waxaa la yidhi waxa ku hareeraysan wax kastoo qurux badan ingiriiska waxaa lagu yahay everything that glitters it's not gold wax kasta oo ifa dhalaalaya ma aha gold maaha sonkortu waa qurux badan tahay laakiinse naftaadu uma fiicna
diinta waxaa ku leedahay naarta waxaa ku hagaagsan ku hareeraysan wax kastoo macmacaan oo qurux badan baa ku hagaagsan ku hareeraysan. marka wax kastoo markaa macaani kuma fiicna. waa inaad horta fahantid conceptigan qaybtan, waa inaad fahantid wax kasta. sinadu waa macaan tahay haa, laakiinse ma kuu fiican tahay? may kuma fiicna. haddaad kiis sonkor cuntid dee adiga isdilaya. marka waa isku sidaas oo kale, wax kuu fiican ma aha. diintoo kale waa kaa fogeynaysaa. waa aragtayno dadka badana heesaha iyo balwadaha iyo ku jira maaragtay fanaaniinta iyo dadkaas waa dad shahwo badan oo naagawad badan oo daansi ladii ku jira. weliga xagga diinta waa ku xun yihiin salaadaha iyo because salaadu waa khushuuc, waa qalbiga, waa ku xidhnaasho, waa iimaaniyaad. waxanina waa maskaxda. marka moor aad shahwaani tahay waa moor aad waalan tahay xagga maskaxda ka fikraysid ee qalbigaagu maran yahay weeye. waa wax aad iyo waxan u dhib badan. waa cilmi saynis weeye waxani oo cajiib ah. dhalinyarta waxaan oran lahaa waxaa jira wax la yidhaahdo nofab iyo reddit iyo masturbation iyo inay google gareeyaan oo waxan baaraan oo research ku sameeyaan. millions hit bay gabdhahan yaryare isruuxaa facebook iyo soo fadhiisanaya youtube iyo ftayarsa u raxaya. caqli markaa ku eegtay ftayarsa u raxaysa naag maxay tahay? wax macnaa male. waa qarmuun xaar bari yaroo dee baruur ilaahay u sameeyey estrogen iyo adigoo laabtaadaas maxaa lagaga mashquulayaa oo kale iyo garhkaagaas oo kale. dee naasay leedahay, adna garh baad leedahay. waa wax ilaahay u sameeyey, wax nothing big deal oo wax caqli markaad ku eegtid dee naag ku soo jiidato macaan oo aad ku sheekayso iyo isdees jeclaasteen oo hunguri idin dhex marayo mooyaane gabar yaroo halkan waxan inay maskaxdaada xanuunsanaysa mooyaane inay ku maaragtay ku kicisa maahayn. marka see isaga dayn karaa? waxaa horta marka hore markaa waxaa ogaatid waxaad isaga dayn kartaa inaad marka hore daayatkaaga inaad bedeshid, inaad hilibka, soodhada, kaafiga, drugska, waxyaalahaas oo dhan haddaad samaysid khasab waad khilaabsi. waxaad samaynaysaa inaad waad sigaysanaysaa haddaa waxyaalahaas oo dhan cuntid. soodhada, fast foodka, kaafiga, hilibka, waxyaalahaas oo dhan oo sonkortaada kicinaya. markay sonkortaada kiciyaan shahwa ku qabsanaysa, isla markiiba shahwa kacsi baa kugu taagaya. teeda kale waa inaad biyo qabow ku qubaysataa. mar kastoo kacsi ku qabtana waa kaadi baa ku daba jirtay. horta waa inaad kaadidaa oo masquul ku carartaa. waa inaad biyo qabow ku qubaysataa. waa inaad jiim gashaa. waa inaad xagga diinta u carartaa. waa inaad neeftaada bedeshaa. waa inaad exercise jiim gashaa. waa inaad internetka iska xidhaa oo social media iska control garaystaa. instagram iyo snapchat iyo youtube-ka naagaha dabada ka raxay waxaasoo dhan. waa horta snapchat-ki instagram-ki waa inaad ka takhalustaa. waxyaalahaasoo dhan waa inaad iska xidhaa. kadibna social media waa inaad iska limid garaysaa. internetka haddaad doontin waa inaad xidhid. internetka la-aantii may jiri jirin born addiction, ma jiri jirin iyo inaad ku waalatid waxyaalahan daawanaysid ma jiri jirin. marka waxan wax internetka la yimid. hadday internetka tuurtid dee maxaad ku sii ganaysanaysaa? telefoon yar qolfa soo qaadatid sida kalena aad isaga celisid. ama internetka guriga hoostiisa dhig. waxa iskaga xidhaa waxyaalahan celiya, iskaga xidh password, iskaga safe garee. marka aad 2 bilood iyo ama 2 week ama 3 week joojisid isbedelka kugu dhaca, markaasaad qiimayn kartaa oo noqon kartaa qof ka doodoo yidhaah war waxan wax fiican maaha, waxan wax xun weeye, waxan waxay tari maayaan. marka aad waxa samaysid baad ka hadli kartaa. marka waxaa oran lahaa dhalinyartu waxyaalaha ha samayso, ha isku daydo. gabdhahan yaryare lacagta kaa samaynaya clickbaitka ku wada jira ee youtube-ka roonay ruux dhahlaya, it doesn't make sense. max macnaa samaynaya male. waa in dhalinyaro badan oo advocate oo waxa weeye dadka soomaalidan u sheega waxaan wax xun inay yihiin waa inay soo baxaan oo sheega. oo waxa weeye qolyahan xitaa dabcasar iyo maama malyuun iyo hypersexualist world way iyagaa dhalinyarta sii kharibayo. xitaa waxay ka sheekaynayaan waxa weeye saytuun baa la mariyay, qaraa loo cunayaa, dadkii bay qalbiga ka xanuunsanayay bay shahwada kusii kicinayaan.
way ku sii kicinayaan wax faa'iido ah oo ay u sheegayaan ma jirto faa'iidadu waxa weeye waa inaad naag dowlatid oo internetka iska daysid oo gacantaada iyo waxyaalaha iska daysid oo naag ku mashquulshid oo hadday dhalinyartu saa samayn lahaayeen waay gabar yaroo loo soo geliyay habeenkii intaas oo milyan oo klik ay u heshaa waxa weeye waa dhalinyartu meesha waa ku jirtaa waysan ogeyn hadday og yihiinna waxa weeye waa ku dhegan yihiin oo waa daawanayaan oo waa qalbigooda waa jiran yahay marka waxaan aad iyo aad uga digayaa dhalinyarta waxaas and if you guys understand or waxa ka faa'iidaysateen please subscribe and comment and shoot me email waxa weeye weydii su'aalo ii soo dir like ii saar waxa weeye bal aan kala faa'iidaysano gabdhaha anuu ma garan karo hawlahooda ma aqaano laakiinse waa wixii weli ku dhaca gabadhna waa ku dhacaan waxaan u maleynayaa xitaa gabdhaha qaar kasii xun baa laga yaabaa oo kusii daran marka waa islaamaya